ودي مدحda ilaalinteedu moogtay de waa ummadoo la ilaaliye hadii wax kala sareeyaba hadii la waayo ma jirto maaragtay madaxnimo la waayo madaxnimo wax jirto ma jirto hadii la balay way adduunyada imkaan walada madaxweynaha ninka madaxweynaha la iska caayo abar kasta waxa weeyaan TV malaha ama mikrofon ma loo dhiibaya ama samaacad yaro waxay doontay markaa oranaysa sida Bukhari oo warinayo Ibn Abbas oo warinayo بسبب إنك تقرني سنة حر ابن قيس من الأورنجري وكم إذا مستشارين تي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب مستشاري كدقيجة كو حفظة كتاب كلا كو حفظ سنة يكدقين شري إن الله تليان حفيز كي سفري سنشري وحمرك لنا وحويان عيانة بن حصن وحان أعرابيها وإنك أديروها حر ابن قيس وعيانا لو oran jiray ayaa inanka oo adeerka u yahay xur ibn qays oo ay ku soo degay wuxuuna kamid ah ninkaasi la yiraahdo xur ibn qays dadka Umar uu soo dhaweysto kamid ah quraada marka la taliya عيانا markuu u yimid inanka adeerka u ahaa ayuu adeero de ninka wajibaad ku leedahay amiirkaahi bal idan ii weydii inan xafiiska ugu garan doonayay gurigiisa ugu tago إذا بو قتل بي ومركا وكيري عمر بو مركا أوتغي نكا عيانة بن حصن وين العربي والرباديوي مركا أوتغي بو حيدوي هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل هي يعني مصيبة توي إنكار بلايات إلى أن يكون دارتبي وحب ظن ما سيسيد عدالتنا وقوم حكمتيد بل هذا مركا مدحوينا ما ركتي وسال ولي كور مصيبه لا سو ديري با تايو مد لو كيني وحنا احكام بحيان عدالتنا ما سمينيس عمر مركا waxa uu carooday wuxuu damcay ninka inuu talaabo ka qaado حر ابن قيس oo de mustashaarintiis kamid dadka de ahl quraanka ay wuxuu ya amir al mu'minin inna allaha ta'ala qala lin nabiyhi sallallahu alayhi wasallam خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين بيقول كان مركا عمر بن حسوسين يا هذا قرانك وحلي مركا عبد الله بن عباس والله ما جاوز عمر حتى تلاها عليه أيضا مركا مو دافين حين تلاها عليه مركو كو أغري وكان وقافا عند كتاب الله marka macnaha waxa weeyaan de watagaafal an umuur arimaha qaar kood inaad ma indhaha ka laabato ay marka loo baahan yahay Umar naftiisu marka naftiisa uu arsaday ma doonayni de maaragtay maxaan ku khilaafada iyo maxaan ku khilaafada islaamiga in meel laga dhaco oo cid kasta wax ka sheego caayo ayuu diidayeen wax meel laga dhaco ilaa hadii haybada madaxnimada la waayo dawladda heli maayo soo ma ogidin adduunyada imkaan walada madaxweynaha ninka madaxweynaha la iska caayo Soomaalida moog abar kasta waxa weeyaan TV malaha ama mikrofon ma loo dhiibaya ama samaacad yaro waxay doontay markaa oranaysa ودي مدحda ilaalinteedu moogtay de waa ummadoo la ilaaliye hadii wax kala sareeyaba hadii la waayo ma jirto maaragtay madaxnimo la waayo madaxnimo wax jirto ma jirto hadii la balay way laakiin wax badan inaga noo keenaya kitaabkii ilaahay iyo sunnii nabi maxamed markii meel iska dhacay oo distoorkaynu qaadanayna uu noqon waayay kii rabbi noo soo dajiyay nabi maxamedna uu nooga keenay inuu dasaatiir meel kale iyo reer galbeedii bal la keenay markii ku dhaqanay abaalkeen weeyaan in de maaragt ninkaas waxa lagu war mudada haday gaadho waliya ka carar meesha islaamka la kisaab u yaqaan qofka hadii loo doorto maaragtay ahlu xal wal aqd haday doortaan waxa weeyaan de xilgiisa marka soo bixi waa gaar weey marka Umar wuxuu damcay marka isoo ilaalinaya khilaafada marka maxaan ku yiraahdaa waxa weeyaan ilaalinaya maamuskeeda buu damcay laakiin sida fiicnayd sida inuu qaatay marka